qisadeena maanta waa qiso yaab badan. cinwaankeeda waxaa waaye gurigeyga inuu burburo waxaa sabab u noqday sheekh wax badbaadiyaa la arki jiray, laakiin gurigan inuu burburo waxaa sabab u noqday sheekh. si gabarta ii sheegayso, haddaba siduu sheekhan gurigan gabadha miskiinta u burburiyey? محو سميه فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لدرس جعل ولا دونكات كجوتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة والبقية قصة عصر ولا ليال قصة هنا ما أنت ورنتي قصوينك إيجوياب كبدنا إسوا مرتي وايه مالين مالمها كمده وحا وضح ظلني قف dumar walaashay qiimo badan waxay tiri sheekhow gurigeyga wuu burburay anigoo rabin inuu iga burburo. khilaaf yaraa jiray, anoo raba khilaafka inaan xalliyo. khilaafkii xalintaan xalinayay waxay noqotay in uu gurigeyga burburo. marka waa u sheegay, waxaan ku dhahay guri adduunka ma joogo oon khilaaf ka dhacaynin. intuu ilaahay abuuray waxaa ugu qiimo badan, ugu sharaf badan, ugu akhlaaq badan xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. taariikhdana way noo sheegtay wixii gurigiisa ka dhacay. axaadiista Caaisha warinaysay ummahaat mu'miniin kalena waa ka aragnay. marka khilaaf waa iska shay basiid, waa tabci bashar waaye. laba qof meel wada joogto in kelma la isdhaafsado waa tabci bashar, wax la yaqaano waaye. gabadha inay ninkeeda ka xanaagto, ninkii inuu gabadhiisa xaaskiisa ka xanaago waa shay tabiici waaye. nabiga sallallahu alayhi wasallam Caaisha wuxuu ku dhihi jiray, waa ogahay markaa raalli iga tahay iyo markaada raalli iga ahayn. yaa allah, xabiibkeena Muhammad xaasiisa ku dhahaa. markaasay waxay ku tiri sidee ku ogaatay? markaasuu wuxuu yiri markaa raalli iga tid markaa dhaaranayso waxaa leedahay laa warabbi Muhammad, laakiin markaad iga xanaagsantiid waxaa leedahay laa warabbi Ibraahiim aa leedahay. arrintaa ma jirto, Ibraahiim rabbigiisaan ku dhaartay. laakiin markaa heshiisaan nahayna waxaa leedahay nabi Maxamed rabbigiisaan ku dhaartay. marka waa shay iska dabiici waaye. gabadha marka waxaana sii wax u dhaceen, waxay tiri sheekh aniga sidii guryaha Soomaalida caadi ahaan waa ani xaasaan ahay, ninaa isqabnay, caruuraan lahaa. waxay tiri xoogo waxyaalaha dhibsanaa jirta ninkeygaan ka dhibsan jira. waqti inuusan isiinin matalan, inuu hadal jiican igulasan hadlin matalan, sometimes inuu banaanka noo saarin, waxyaaba waxaa jira saas oo kale aan ka dhegeysanaya. maalin maalmaha ka mid marka waxaan dhageystay tiri muxaadara sheekh leeyahay jamiil. sheekha magaciisa ii sheegiran ku dhahay, markii sheekha magaciisa inuu ogaado. sheekha marka waxay tiri wuxuu yiri tiri wuxuu ka sheekeynayay romantic, uu ka sheekeynayay ninka sidoo ku noqon lahaa, romantic ku noqon lahaa, waxyaabo badan uu sheegay. marka wuxuu yiri ninka waa inuu saan noqdo, waa inuu saan noqdo, waa inuu saan noqdo, waa inuu saan noqdo. waxaan rabay muxaadarada waa qabs meelaan dhigtay tiri. markaan dhigtay kadib waa imid, waa ninka waxaan ku dhahay saana noqod wixii li qoran aan qortay waa tiri saana laga rabaa inaan noqotid. hor ilaaf weey waxaan aniga had waqti uma haayay. markaasay tiri haddaa saas noqoys diin ma taqaanid oo maxaa dhahay sheekha dhahay arrintaas. markaasuu yiri waxaas sheekh ma ahniyaa sheekha dhahay tus. marka markuu saas yiri waa ka baq, waxaan dhihi tiri may arrintaan lagaga baahan diintana saanay qabtaan. waayahay kadib adiga waxaan soo taraagay marka dambe waxaan dhihi tiri sheekhaas dhageyso. sheekhu uu dhageystay. markuu dhageystay kadib wuxuu yiri asina wuxuu raadi sheekhaas oo dhinac kale ka hadlayo raadiyay. wax badan muusan soo helin. marka wuxuu raadiyay marka sheekh kale oo dhinacaas ka hadlayo soo raadiyay. adina sheekhaas dhageyso. waxay noqotay marka laba sheekh in la isku garaaco. adina sheekhaan dhageyso, adina sheekhaan dhageyso. adina marka damaalin guriga markuu joogo waxaan u talagalay sheekhaas la inaan shido. markuu guriga soo galo waa shida. wuxuu u yiri adiga iyo asiga iyo kaasba waxaas idinku yara baxay dhaaf way waxanaayeen. marka waxyaabahu sheegay maxaa waayaan ku dhahay. marka arrimay ii sheegtay waa arrimo sax ah waaye. arrimaha marka saxda ah waxaa loo baahan yahay marka waxaa waaye arrimo laba qayb waaye. arrina waa waajib oo labada dhinac, ninka waajib waxaa ku ah, gabadhan waxaa waajib ku. arrina waa wanaag, saas in loo kala bixiyaa fiican. wax waajib ah iyo wax wanaag ah. waxa waajibka ninka hadduu sameey waayo dembi ku dhaca, gabadha haddii sameey wayso dembi ku dhacaysa. waxa wanaaga ah marka inuu ninka sameeyo waa wanaagsan tahay. hadduu sameeyo qalbigeedu qabsana way sii jeclaanay. gabadha ninka uu sameeyo sidoo kale qalbigiisa qabsana waa sii jeclaanaysaa.
laakiin sheekha waa labadii isku daray kanaa laga rabaa kanaa laga rabaa kanaa laga rabaa iida marka wuxuu qaat waxyaala waajib inuu ninka laga baahan yahay inuu sameeyo waxyaabaha ma sheegaya طبعا sheekhan magaciisa ma sheegaya almi marka dambe sheekha magaciisa way ii sheegtay waana gartay labadoodii ma sheegay laakiin waxyaabaha waxaa fiican markii la sheegayo in la kala saaro walaana waxaan waa wax la dhageysanayo qof dhageysano qof xanaagsanaa laga yaabaa hadalkaaga inuu dhageysto waxyaabaha waajibkan inaa shi salaadoo kala fiiri waxaa lagu leeyahay shuruud salaawa haddaa mid ka mid ay ka tagtay salaadaada waxba kama jiraan arkaan salaawa haddaa mid ka mid ka tagtay waxba kama jiraan tan kale way fiicanta sunan salaa haddaa sameeyo salaadaada qurxin haddaa sameeyo salaadaada ma jabayso guurka saas waay marka waxyaabo waxaa jirto asal hadduu ninka sameey waayo dhib imaanaya haddii gabadha sameeyayso dhib imaanaya waxyaalo waxaa jirta wanaagsan marka labadii waxaa fiican in saas loo kala saaro ayaa fiican dadka ka hadlaya arrimahaas ka hadlaya gabadhi marka waxaan ku okay suu ku burburi marka sheekha gurigaa suu ku burburi ii sheegay intaan uu ku sheegay sheekha guriga kuma burburi suu ku burburi waxay tiri muxaadarooyin kala dhageystay tiri oo مثلا ninka saad isaan haduu ku sameey waayay oo ninka gabadhiisa jecel ha wuxuu yiri muxaadara kale ninka xaaskiisa jecel waxaa lagu gartaa inuu u sameeyo 1 2 3 4 inuu u sameeyo intii baa ka waayay ninkeyga marka waxaan ogaaday ninkeyga inuusan jeclaan yaa kuugu yiri inuusan ku jeclaan sheekhaas ay ugu dhaxay oo ninkaaga wuxuu tiri 1 2 3 4 haduu ku sameeyo kuma jeclo marka waxaan ku jecelka waa arrin qalbiga ku jirto waxa ogaan karaan waxa waaye ilaahi baa og inuu qofkan qof kale jecel yahay waxaana ka dareemi kartaa dhaqankiisaan weydiiyay marka waxaan ku dhahay suu ahaa nin fiican oo ahaa wiiliga dhib kuma qabi laakiin waqti baan ka waayay kana ka waayay waxyaalihii oo markaan fiiriyay waxaana ninkan intaan waajiba ku leedahay intaan muu ku sameeyay intaan waa ii sameeyay mana nusqaamiyo adi intaan waajib ku leeyahay intaas ma sameeyay qaar kamid ma sameeyay idii wixii waajibka laga rabay ninka laakiin intii waajibka laga ahaa wuu sameeyay marka waxaan ku dhahay adiga intaanu ihsaana laga rabaa ma sameeyay badi way sameeyay laakiin qaarka waajibka qaarka ma sameeyay laakiin intii ihsaanka way sameeyay asiga waxaan ku dhahay intaana wanaag laga baahan yahay intii miyuu sameeyay marka waxay tiri qaarna wuu sameeyay qaarna ma sameeyay marka waxaan ku dhahay inta waajibaadka sameeyay ma inta kala adaa ku darsan karta xabad ugu tartiibtay ugu darsan kartay alminsaan wada hadalku wadna marka waxaan ku dhahay okay kadib maxaa sameeyay waxay tiri ninka waxaan ku dhahay ma jecli si ku waatiran ku jeclaan sheekha wuxuu dhaadana sheekhi qabsatay sheekh wuxuu yiri kan iyo kan haduu ninka ku sameeyo kuma jeclo marka wuxuu yiri kaas sheekh ma ahan waa adil muhim wuxuu yiri sheekhi wax ka sheekh anigana waa xanaagay markaas waxay tiri sheekha macaan ka wax kama sheegi kartay markaas uu yiri oo sheekha maxaa idin ka dhaxay cilaaqo ma idin ka dhaxay maxaa sheekhiga difaacaysa buuqa meesha ka dhashtay marka buuqa meesha ka dhashtay adiga marka waa damiyay tiri laakiin waxa ii cadaatay hadalka ninka inuusan jeclaan marka si kugu cadaatay waxay tiri marka waxaan ku dhahay fur hay muxuu ku sameeyay wuu diiday inuu furo طيب haduu diiday inuu ku furo macnaheedu maxaa inuu ku nacban yahay miya mise inuu ku jecel yahay waay qofka hadaadan jecleen ninka waxaaska janaasiibka iimaanaysa inuu furo ama wuxuu raadsana ibyar ama mushkilo yar raadsana oo aga takhalusu raadsana hatta haduu xishoonayo inuu xaaska furo wuxuu raadsana mushkilo yar ee iyada sameeyso yar oo sii weynay oo aga tago laakiin iyada ka dalbatay dhibaatadaas ku sameeyso waxyaabo badan ay weydiisatay المهم وديدي إنه فورا وحاجو عن صديتي مركا إنا أنا سديدو سبحان الله فيري وحيرات سنة وحاوي وحيابة أو محارة هاي كماليات إحساني رات سنة إنسان لكن إذا وحياله واجب كها يديدي سا نيكي مركو ديدي وحيتر سدح بلاد وأسديدي نيكي المهم وبحيتري dibadu aadi meel aadi waa ilmiin waa ninka waa soo guursaday markuu soo guursaday waa si waashtay warkaas ay cadaateen waa biya cadaa hadalku sheekha sheegay suxuun waa inay furtid waay ninkii marka waa ilmiin uu diiday inuu furo waxay tir sheekhi arinta ka sheekeynaya wacay uu diiday inay qabcudan u duubay oo risaala u qoray wuu aqri wuna dhigis iyo masoo jawaabinay tir laakiin waxa waaye codkiisa waa uu dhageystay waa u sheegay mushkil ay haysato arintaas aan ka maqlay iyo adina dhaxday alin sheekh waxay tir codkeen uu dhageystay waxaan uu aqri mana ii soo jawaabin arintii marka waxay tir shi buuqa dhacay buuqi markuu dhacay marka ninkii sidii ayuu isku dhagnay kulleedkan isku dhagnay marka adi maalmaha kamid waxaan ku dhahay taniyo iska kii furmad xeelisay sidii ayuu igu furay tir marka ninkii sidii markuu igu furay furitaan markuu u furay waa naxay tir أنا وحاول مرينا سيدي توكده هو إنه يديده ومريناي مركو إفروان نحي لكن متوسين أنا نحي خلاص وابكو فرح سنة هندي ترى قصل وأسقصل السي أنا روني جاي هنا وأسقصل السي وأسأدت كي لكن شيخ وحيد الدبعتات حتى فهمت تنقوش يو بالإبران كلام مقنه وحان دريمو يا يترجع عن دريمو المهي أبوه هذا عادي يجو حرناين الم أبوه هذا جعل واي صبح وأب أوي يجو هايان
maxaa la dhahaay howlo badan uu ii qaban jiray ma jirto weligay waxay tiri ma soo adeegin maxay tiri weligay waxay tiri koronto iyo gaas ma bixinin waxay tiri wallaahi billaahi tallaahi waxay tiri guriga intaana degana meel ijaar lagu bixiyo meel gaas koronto lagu bixiyo maanan ogeynay tiri marka adigu baa asaas u adeegi jiray culeyska korkeyga soo fuulay tiri sheekh waxay tiri caruurtii iyo waxaan waa isku qaban la'ahay maxaa xal ah marka waxaan ku dhaha arrintii markaa hadal dheeraana dhex maray kadib adi diyaar ma u tahay inaa gurigaaga haysad waxay tiri haa sheekh ana diyaar wa haddii ninka aa la hadashid ninkii oo ninkeeda nambarkiisa siiyaan ku dhahay marka ninkaan la hadlay ninkii waa isgaranay bidaat way garta laakiin waa garta anigane arrintaa ka wada hadalnay marka waa ku dhahay arrinta niyo say wax u jiraan marka wuxuu niyo sheekha waa idinka dadka waa sheeg annaga oo yaa idinka culimadiina dadka waa idinka guriga burburinaysiina si aan burburinayna waxyaabahaas sheegaysiin marka waxaan ku dhahay waxyaabahaas qalad miya maya qalad ma tayib haddii lagu sheego maxaa u diidaysaa marka ma awoodi inaa sameeyo caadi ma ahan haddaa samayn kara laa yukallifu nafsa illa wus'aha laakiin naftaada ku dadaal inaa samayso maalinba xabad samey inaa samaysid ayaa loo baahan yahay marka المهم الحمد لله نينك والله هاد لي waxaan ku dhac oo aqli celiye waxaan ku dhac gabadhaada way ku jeceshahay saan waay waa oge wallahi inay jecesho waa qof fiican asigana aad u amaano runtii waa gabar fiican oo diin leh akhlaaq lagu yiri oo banaan aan bixin aroos aan aadin wanaageeda dhan oo sheegay tayib disaasta maxaa caruurtaada u dayacaysaa iidan iska kari waayo المهم الحمد لله gabadhii ninka waa isku noqday waxaan ku dhamaqal sheekha guriga burburi hadaa tiri sheekha guriga ku soo celi hadaba ugu ku dhax marka adina had wixii ka dambeeyay waxa dhageysanaysa iska fiiri sheekh hebel waa aqaanay ku dhahay waa sheekh fiican khayr Allah siiyo even though dhinacyaha qofba waxaana meel sheekh wuxuu ka hadlaa wuxuu arkay markaas dacwada u timaado wax ku dhisa haddii maantana gabar kuu soo dacwoon waxaa kuu dhismay marka kiis oo dhibaata gabdhaha haysta kuu dhimaana hadduu maanta nin kuu soo dacwoonayna kiis waxaa helaysa marka oo nimanka dhibaatada hayste qof walba wixii ku badan marka ka hadlaa marka waxaa fiican in laisku daraa fiican oo markii la hadlayna hadalka miisaan loo sameeyaa fiican oo hal dhinac kaliya oo aan la sameynin qisadan waa qiso faa'iido leh insha Allah taala qaar ka mid ah sheega inta kale idinka idin deyn doona insha Allah taala jazaakumullahu khairan faa'iidada koobaad aan qisadan ka qaadanayna waxa waaye ninka iyo xaaskiisa inay isbartaan waxa waaye qof walba oo qofka kale duruuftiisa uu ogaado si kale haddaan u dhigo ninka walaalkii waxaa rabaa maadaama adiga aad tahay mas-uulka guriga aad tahay waxaa lagaaga baahan yahay inaad baratid waajibaadka kaa saaran xaaskaaga maxaa waaye gabarey walaashii qaaliga ah waxaa igu leedahay maanta aan ku guursaday waxaa igu leedahay 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 aa igu leedahay inta mid ka mid ah iga waysid qabso ina xasuusi si wanaagsan iyo xasuusi wixii intaan ka soo hero waa walaaltinimo iyo wanaag waxaan kugu sameynaa gabadha walaashii ninkaaga wuxuu kugu leeyahay ogow baro 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 ugu xabiibi waxa tirahay inta xaaskaaga ahay nimankana adaan ku aqbalay caruurteeda aabahooda tahay intaan waa ku sameeyna hadaan intaan mid kamid iga waysid walaalow si tartiib ila hadal oo degan ila hadal xuquuq iyo waajibaat wallahi ala ya'lamu man khalaqa huwa al-latif allahi ku abuuray ayaa yaqaano allahi ku abuuray ayaa nafteena yaqaano axmedo intaana laga rabay ayuu yiri hiblaayi intaana laga rabay ayuu yiri marka ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu ku amray waajibku uu sameeyay wixii kalena waxa waaye oo ihsaanka xaajiyeed markaas uu sameeyay gabadh walaashiina sidoo kale ayaa laga baahanyaa faa'iidada labaad oo qisadan ka qaadanayna waxa waaye oo ku socoto dadka walaalihii oo ducaada ah oo aniga aan kamid ahay culimadeena waaweynka ma hadlooyi dadka ducaada ka hadla oo aniga aan kamid ahay markii waxyaabaha qaarkooda la sheegayo waxa fiican inaan waaqiciyiin noqonnaa fiican runtii inaan waaqiciyiin noqonno oo aan ummadeena wadcigooda aan ka hadalnaa fiican inaan hal dhinac exaggeration aan ku sameyno buumbuumino ka badbadin ma fiicno dadka qaarkood waxaa arkaysaa nimankii Soomaalidu waa la dhibay guryaha banaanka loo soo dhigay dumarkii waa halaabeen kan uu wada qaarna wuxuu kale oo dumarkii waa la dhibay dumarkii saan waaye masaakiin waaye ayaga kan sameeya ayaga maya kana wuu jira marka wixii ma rabna inaan ka dhigno issue oo hal dhinac bis dulmisan inaan ka dhigno ma rabno waxaan u baahanahay waxaan amaano waaye qofka xaqiiqada in loo sheego gabar hadii ku soo wacday xaqiiqada u sheeg oo waxa ku tirahay walaali 1 2 3 laga rabay 1 2 3 laga rabay walaalo mid kale markii mawaadiicdan laga hadlayna ha laga hadlo maxaa waajib ah maxaa sunna ah inta waajibka inta waa inta hadaa ka ways ninkaasi tartiib oo la hadal
intaan haddaa ka ways xaaskaasi tartiib oo la hadal. laakiin waxyaabo qaarkood oo kale oo exaggerationka lagu sameeyana runtii waa guryo inay burburiyaan laga yaabaa. marka insha allah taala arrintaas aan ka fiirsano, khayr allahna wada siiyo dhammaanteena. faa'iidada saddexaad aan ka qaadanayno waxaa waaye mar kasto fiiri nicmada haysatid, waxa kaa maqan ha fiirinin. maalmo dhaweyd gabar arrinteeda isoo wacday, waxay ku leedahay ninkii waa fiican yahay, kan waaye kan, okay maxaa ku haayo u dacwoonaysaa? wax kasta hal cillo waa ii sheegi weysay, marka maxaa ku haayo? markaasi waxay tiri gabdhaha habiirtiiba saana loo sameeyaa. markaasaan ku subxaan allah, adiga 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 ma lagu sameeyay, ha maxaa kaloo rabtay? maya taas banaanka loo bixiyaa kan saasa. marka dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay fiiriso hebla waxaas loo sameeyay anna ii sameey, taas gurigaagu burburina. irda bima qasama allahu laka takun aghna annaas, sida nabiga sallallahu alayhi wasallam dhahay. waxa haysatid fiiri, waxa kaa maqan ha fiirinin. walaalkii ama walaashii allah idin xifdiye. hadduu ninkaa intaan kuu sameeyey, hebla waxaa loo sameeyey, hebla baabuur loo soo gaday, hebla sariir loo dhigay, hebla waxaa la geeyey meel la geeyey, ha fiirinin. adiga waxaaga ma haysataa ma lagu siihaa? waxyaaba adiga a haysatid iida i haysana soo ma jirto? waxyaaba adiga haysatid uu asiga haysana soo ma jiro? haa way jirtaa. idan waxaa haysatid fiiri, waxa qofka kale haysta ha fiirinin. khayr allah ku siiya. faa'iidooyinka kalena idinkan idin diina soo qora insha allah tacaala. jazaakum allahu khayr, baarak allah fiikum. ilahay darsiisa idin jeclahay. waa inuu jumcada soo socota iyo qiso kale oo cusub oo aad u qiimo badan ilaa jumcada soo socota laga gaara. maxaa laga rabaa? dhegeyso, ka faa'iideyso, ku camal fal, walaalaha kalena u sii gudbay. khayr allah ku siiya. ilahay darsiisa idin jeclahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.